ugu horeyn shirkan maanta aanu isugu nimi waa carwadii labaad ee tiknoolajiyadda dowladda Puntland oo aanu sanadkii labaad halkan isla hoolkan Dream Point aanu ku qabanayno. waxaan uga mahadcelinaynaa mas'uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ugu horeeyo oo sida joogtada ah wasaaradda iyo wasaaradaha kaleba shaqadooda ugu garab taagan carwadana sanadkii labaad nagala soo qayb galaya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo intaan cid kala gaarin baxda saxaafadda Puntland oo runtii si dhammaystiran oo aan kala har lahayn wasaaradda ula shaqeeya gacana naga siiya guud ahaan shaqooyinka aan dowladda Puntland wakiilka uga nahay. intaa kadib waxaan rabaa inaan si kooban u sheego carwadan iyo ujeedooyinkeeda iyo waxa hadduu la yiraahdo ay ka koobnaan doonto. carwadan ujeedadeedu waxa weeyaan inaanu ku baraarujino bulshada Puntland tiknoolajiyadda. tiknoolajiyaddu waxay maanta noqotay nolol haddii ay ahaan jirtay xilli wax aan dad badan ku tiirsanayn aan aqoon badan loo lahayn. maanta waa noloshii guud ahaanteed la-aanteedna nololiba ma socon kartaba. marka wasaaraddu maadaama ay wasaaradda dowladda u xilsaaran tahay qasdiganadu waxa weeye inaanu bulshada iyo dowladda guud ahaanba ku baraarujino waxa ay tahay tiknoolajiyaddu. haddaba tiknoolajiyadani aan sheegnay inay nolosheena tahay cidda ugu baahida badan oo la rabo in laga haqabtiro oo wax laga taro waa qaybaha ay maanta baanaladeeda iyo prestationada hadduu aleeda ka koobnaan doonaan. waxaa asal u ah waxbarashada. haddii aanay waxbarashada tiknoolajiyaddu tayaysanayn waxaa xaqiiqo ah inaanay tiknoolajiyadda Puntland hana qaadi karin. xog ururin aanu samaynay oon raadinay waxaa noo caddaatay 5 sano ugu dambeysay inta u dhaxaysa 4,000 ilaa 6,000 oo arday inay ka qalin jabiyeen qaybaha kala duwan ee tiknoolajiyadda ee Puntland jaamacadeeda ka baxay. waxay ku tusaysaa qiyaaskii sanadkii in 1,000 arday ay jaamacadaha ka soo baxayaan oo ay shaqooyinka Puntland u soo baxayaan. fursadaha jiraana ay aad u yar yihiin. haddaba waxyaabaha aan rabno in qayb ka mid ah insha Allah tacaala wada hadalka halkan doodaha ama baanalada ka dhici doona waxaa ka mid ah baanalka waxbarashada khuseeya iyo sida ay waxbarashadu ula jaanqaado iyo sida uu dhaqaalaha u kabcinayo intaba. waxaa kaloo jira ammaanka oo qaybaha ugu muhiimsan ah isagana iyadana halkan dood baynu ka jiri doonta insha Allah tacaala oo qaybaha halkan lagu soo baahin doona ka mid ah. waxaana xoogga lagu saari doonaa ammaanka tiknoolajiyadda iyo ammaanka guud ee Puntland sida uga qayb qaadan karo. qodobka saddexaad oo insha Allah halkan kaga doodi doono waxaa ka mid ah isgaarsiinta oo iyadu sal u ah ama ha ahaato qaybta infrastructure-ka oo ay ka mid tahay fiberka iyo guud ahaan isgaarsiinta horumarkeeda oo maanta gacanta ku haya guud ahaan dhaqaalihii dalka iyo horumarkii dalka ka socday iyaga sal u ah. in bal halkaana lagu wareysto lagulana xisaabtama bulshadana ay su-aalo weydiiyaan insha Allah. waxaa kaloo jiri doona dooda la xiriira maadaama haweenku ay yihiin salka dowladnimada iyo unugga bulshadu ay ka soo asaasanto iyaga iyo tiknoolajiyadda wada shaqayntooda iyo sida ay horumarka uga saacidi karaan. waxaa jiri doona isaguna hadduu la yiraahdo baanal kale oo isaguna ku saabsanaan doona deegaanka iyo tiknoolajiyadda sida isu saameeyaan iyo sida ay horumar uga geysan karaan. haddii aan la helin bay'a ammaan ah oo horumarsan oo tiknoolajiyadda la jaanqaada guud ahaan nolosheenu saameyn kuma yeelanayso. haddaba wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyadda dalxiiska hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland waxyaabaha ay u xilsaarantahay ayaa waxaa ka mid ah in ay wasaaradahaas iyo qaybaha dowladda iyo qaybaha waxbarashada iyo shirkadaha ganacsiga iyo guud ahaan bulshada inay isugu xirto tiknoolajiyadda. intaas waxay iga ahayd warbixintii guud oo aan rabay inaan shirka idinku fahamsiiyo. wuxuu inoo socon doonaa 3 maalmood. 2 maalmood oo hore oo maanta iyo berri ah waxay ahaan doonaan doodahaas iyo prestationada halkaa laga samayn doono insha Allah tacaala soo jeedinada ay aqoon-yahanada dalka iyo qaybaha jaamacadaha oo halkan maanta ay fadhiyaan 6 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Puntland oo ah 5 jaamacadood oo Garowe ka dhisan iyo jaamacad Gaalkacyo ka dhisan
oo halkan ku soo jeedin doona wixii ay ardaydoodu horumar ka sameeyeen sanadihii ugu dambeeyay ay baranayeen insha Allah tacaala iyagana berri baan waxaan siin doonaa waqti dheer hadduu la yiraahdo waxaan kale oo ay ka koobnaan doontaa maalinta ugu dambeeya oo saddexaad oo 7 bisha ah carwo aanu fursad u siinay inay shirkadaha tiknoolajiyadda ka shaqeeyahay ay ku soo bandhigaan adeegyadooda iyo wixii badeecada ah oo technology la xiriiro ay dalka Puntland keeneen holkaan insha Allah tacaala maalinta ugu dambaysa ugu diyaarin doonaa buudadkooda u soo dhigi doonaa iyo qoralkooda iyo miisaskooda waxaan sida iyaguna ka balan qaadeen shirkadda wasaaradda horteeda shirkad walba ahi inay bandhigyo iyo qiimo dhimis iyo adeegyo dheeraad ah inay halka keeni doonto hadduu la yiraahdo waxaa jiri doona soo jeedino ay shirkadaha isgaarsiinta iyaguna halka ka jeedin doonaan oo ay kaga hadlayaan heerka horumarka ay gaareen iyo meesha ay higsanayaan hadduu la yiraahdo waxaan idinka raaligelinayaa waqtiga badan oo idinka qaatay waxaan idinka raaligelinayaa wax kasta oo anoo ku hadlaya magaca wasaaradda iyo tiimkii halkaan nagala shaqeynaya wasaaradda ahaa oo runtii tiim aad u adag ahaa oo markii labaad ka shaqeynaya carwada tiknoolajiyadda Puntland magacooda anoo ku hadlaya iyo maalgeliyayaashaba wax kasta oo halkaan ka khaldamay haday dib